xildhibaanada ahlu sunna ee ku jira baarlamaanka galmudug oo maanta shir ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay afduubtay guddiga doorashada galmudug ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug fadhiga lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka maqnaa xildhibaanada ahlu sunna ee ku jira guddiga iyadoo lagu sheegay tilaabada gudoonka guddiga lagu doortay inay tahay mid afduub ah markii anagana la doortay oo guddi ahaan la doortay fadhiga ugu horeeyay oo aan rabnay inaan ku doorno gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen wuxuu ahaa isla maalintii la doortay ee 19 bisha hor istaag baa lagu sameeyay inaan doorno gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii markii la ogaaday qofka ay guddigu rabaan inay u doortaan gudoomiyaha dad gaar ah oo aan ku qanacsanayn qofkii aan rabnay in loo doorto gudoomiyaha oo guddigu ay rabeen inay gudoomiyaha u doortaan xildhibaankii baa waxay sameeyeen inay dhahaan guddigu doorasho ma sameyn karo hal qof aha maqan ayadoo loo soo marsiinayo fariimahaas qayb ka mid ah guddiga iyo dad hawlwadeenna ah runtii hawsha waa la joojiyay arintii waa lagu kala tagay arintaas markii la istaajiyay waxaa guddigu ay isku qabteen shalay markii aan isku soo noqonay qofkii gudoomiyaha noo noqon lahaa iyo qaabkii aan hoggaanka guddiga u dooran lahayn markii la isku khilaafay waxaa soo galay meesha oo yimid gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug gudoomiye gacal baa yimid markuu yimidna arintii markii hore wuxuu noogu sheegay inuuna dhexdhexaadinayo guddi ahaan oo noo kala dabqaadayo oo arintaas aan rabno in la rabo in gudoomiyihii guddiga ay guddigu iska dhex doortaan guddigana iyagoo heshiis ah barnaamijkaas ay sameeyaan sidii baan ku soo dhaweynay gudoomiyaha taladiisii iyo wixiisina waa dhageysanay aaraadii aan kala qabnayna oo guddigu ay kala qabeenna way u sheegeen waxaa kaloo faragelin ku sameeyey sharci darro ah guddiga oo arintiisii si afduuba oo xooga ula wareegay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug gudoomiye gacal ayadoo ay waajibaadkiisa dastuuriga iyo awoodiisa dastuuriga aysan ka mid ahayn inuu guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uu gudoomiyo inuu farageliyo inuu codkooda iyo arrimahooda iyo shu'uuntooda iyo waxa ay sameynayaan iyo waxa ay soo saarayaan asaga uu farageliya ay mamnuuc ka tahayba xataa inuu ka hadlo oo dhex tago ayuu wuxuu sameeyey inuu saaka intuu yimaado oo guddigii u yimid uu yiraahdo waxaad dooranaysaan gudoomiye waxaad u dooranaysaan hebel waxaad dooranaysaan gudoomiye ku-xigeen waxaad u dooranaysaan hebel anaana in shir gudoominaya arintaas oo runtii aan ognahay dastuurka dowlad goboleedka galmudug inaysan ku qornayn waajibaadkiisa iyo awoodiisana aysan ka mid ahayn arintaas meeshii ka dhacday maxamed cabduuli tooxow TV-ga Universal dhuusamareeb